waxaan isleeyahay sanadka qolada la yiraahdo iyo in fact muxuu ahaa baarlamaankuba dadkan waqooyiga halkan jooga oo malayn maayo inuu ku jiro qof dantiisa halkan u yimi oo inuu ka shaqaysto inkastoo dadka qaar la yiraahdo alla nagu sheegayna ka shaqaysanayno halkan mabda baynu nimi mabdaasi waxa weeye inay Soomaali isku baahan tahay baynu qirsanahay inay Soomaali wada socoto inaynu taab rumaysanahay baan halkan u nimi dadka intiisa badan waxa weeye dad meel ka soo shaqeeyay wax walo kalba soo qabtay oo dabeetinaysa aakhir al-amriga bal dalkeena wax u qaban karto isagoo wada socda aniga waxa iga dhaadhacsan Soomaali way isku baahan tahay cid kali isku taagi karta waxa uga faa'iido badan farba farta ku xigta lagu kaba farba farta ku xigta lagu kaba maxaa shaqayno taala intii halkan fadhiday oo senatarisku ka yihiin maxaa shaqayno taala shaqadaasi waxa ka bilaabmaysaa in aan fahamno baahida loo qabo in Soomaali isku tiirsanaato gaar ahaan Soomaalidii gobonimada wada qaadatay haddii xarigu ka xumaaday 60kii in xarig dambe la sooho in la tidcama in la sooho ya haddii la tidcaw kala furanaya maarta in la sooho yaa loo baahan xarig la sooho aan kala furmin ayaa loo baahan yahay taasi shaqo badan bay u baahan tahay shaqadaasi inaga ayay runtii ayay inoo taala inta halkan fadhida iyo indii Ilaahay calaf ku siiyay ku soo biirta meelaha kale ama xukuumadda ku soo biirta ama ku soo biirta golaha kale soo socda ayaa shaqo u taala Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shaqada inoo fududeeyo tana si ay maahe xariga inaga xumaaday gidigeenbe waxaan u baahanahay gidigeenbe inaan isla fahamno isla fahamno baahida la qabo runtii inay tahay dalkani inuu isku baahan yahay now adduunyada yani 4 sano oo halka joognaa 4 sano bad runtii waxay tahay wax badan baa soo qabsoomay afar kale oo stability haddaan galo way ka sii wanaagsananaysaa laakiin halka inaga dhiman waxa weeye in Soomaali isla jaan qaato haddaan taa la sameyn wax hagaagaya ma jiraan inta yar baan oran lahaa shaqo badan bay noo taala waan idin ducaynaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa labadooday gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo arrintan si fiican u soo dhiraandhiriyay oo meel wanaagsan soo gaarsiiyay odayaasha ayaan mahadcelinayaa ula soo jiifay habeenaya dharaar inay soo saaraan dadka sharafta leh halkan ka soo baxay idii weydina waxa weeye walaalkoodun baa helay iyo dadku si isku congratulate gareeyeen markay waayeen ayaa iyaduna aan really wax ma garanaysaa inaan la iloobi karin waxaan isku dayaynaa golaha hoose inuu soo baxo oo dibadda inagu Soomaalida kala dhex galno inaan kala dhex galno inagu meelaha tagno la caawino yani waxaan doonayaa aan isku haysana kol haddaan is hello waxa loo og yahay inaan meel ka soo dhici karo